أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس. markii lay doortay madaxweynaha Tunisia waxaan idin ma rabo inaan ku hoydo qasriga madaxtooyada waxaan ku hoyanayaa gurigaygii hore madaxtooyadana xafiis shaqo ahaan ayaan u imanayaa waxaan kaloo go'aansaday markaan magaalada dangaara ka yeesho inaanan kaxaysan baabuurta dawladda oo aanan shidaalka ummadda ku khasaarin dan aniga ii gaara oo aan anigu leeyahay mararkaas oo kale waxaan kaxaystaa baabuurkaygii yaraa ee aan lahaa intii aanan noqon madaxweynaha Tunisia dad badan ayaa waxay dhahaan maxaad sidaas u samaynaysaa oo igaga hor yimi waxayna dhahaan waxaad khaldaysaa borotokoolkii madaxweynenimo laakiin dan uma galo muhiimaddu waa inaan dadkayga tusaa madaxdu inay iyaga shaqaale u yihiin iyo in aanay madaxdu dadka waxba dheerayn sidaas waxaan u yeelay waxaan ogahay shacabka iyo eebbe hortiis in maalin laygu xisaabin doono wixii aan sameeyey waxaan ka cabsanayaa maalinta alle hortii laygu xisaabinayo inaan waayo waxaan ku jawaabo لأنني أعلم أنني سأقف بين يدي ربي وأمام الشعب وأمام التاريخ لأحاسب عما فعلت وحينما أدعى إلى تحمل المسؤولية أتحملها من منطلق الواجب وليس من منطلق الطموح إطلاقا فليس لدي أي طموح dad badan waxay ugula yaabeen arrintaas waxay dhaheen macquul maaha inaad sidan u dhaqmayso laakiinse waa ay la qabsan doonaan insha Allah maxaa keenay inaan sidan u dhaqmo shalay markay shacabku i dooranayeen waxaan tiya ma haysan waxaan ahaa macallinnimadii ayay igu qadariyeen iyo markaan garsoorka joogay in aanan weligay talaba khaldan qaadin xilligii doorashada baabuur qaali ah ma wadan ololihii doorashada $1 igama bixin oo shacabka ayaa i garab istaagay waxaan ka adkaaday musharaxiin kharash gareeyay malaayiin $, sidaas darteed way ii cuntami weyday dadkaygii mas'uuliyaddu iga saarayd oo sidaas iigu hiiliyey oo badankood xaaladooda dhaqaale ay aad u liidato inaan u dhaqmo si iyaga ka duwan ama ka heer sarraysa in badan waan ku taagnaan doonaa go'aankayga iyo kuwii doorashada ka hor aan u ballan qaaday waxaana xoogga saarayaa intaan halkan joogo inaan bulshada noloshooda hagaajiyo oo aan hantidooda u ilaaliyo una beekhamiyo inta aan xilka hayo Qays Saciid macallinkii ayaa xoolihii ummadda dhacay oo ku tasarrufay taariikhda abadan ii gelin mayso أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها intaan aniga xilka madaxweyne lay dooran ka hor xaaskaygu waxay ahayd garsoore maxkamad sare xaaskayga ayaan ku qanciyey inay ka tanaasusho mas'uuliyadda garsoor ee ay ka haysay maxkamadda sare kadib maxkamaddii ayaan u tegey waxaana ku idhi iiga fasaxa xaaskayga shaqada sababtana waan u sheegay sidaas ayay xaaskaygu uga dhex baxday garsoorka dalka arrintan waxaan u sameeyey 2 arrimood in aanay isku dhex milmin hay-adihii garsoorka iyo xukuumaddu waa arrin xasaasi ah haddii labadaas hal qof ama koox ay gacanta u galaan waxaan isweydiiyey cadaalad ma la filan karaa adigoo ah madaxweynihii waddanka iyo xaaskaaga oo joogta garsoorka haddii aniga layga eed sheegto oo maxkamadda layga soo dacweeyo tusaale ahaanba aniga ama qof kale oo ehelkayga ka mida qof walba oo reer Tunisia waxa u soo baxaysa in aanu helayn xukun cadaalada maadaama xaaskaygii garsoorka ay fadhido xitaa haddii ay si cadaalada wax u xukunto marnaba tuhun meesha kama baxeen anoo ka qiyaas qaadanaya waaqica aan ku noolahay hadda marka tuhunkaas oo dhan inuu meesha ka baxo ayaan sidaas u yeelay anigoo ilaalinaya dareenka shacabka kuwaasoo horay u tirsanayay cadaaladdarro baahsan inay shacabku dareemaan inuu isbeddel yimid nidaamkii horena meesha uu ka baxay oo ay ku niyad samaadaan shacabku
inay helayaan garsoor cadaalada. arrinta labaad ayaa ah 5 sano ee aan xukunka hayo in aan xaaskayga iyo qoyskayga intiisa kaleba aanay ku lug yeelan arrimaha maamulka dalka oo dhan. dhibta ugu weyn ee ka jirta caalamul islaami waa cadaalad darro. waa boog ku taalla dunideenna islaamka. haddii boogtaas dawo loo helo wax kasta way hagaagayaan. daawaduna waa in la helo cadaalad rasmi ah oo laysku hallayn karo. dadkeennu xaalad kasta oo dhaqaale xumo haddii ay ku jiraan laakiinse ay haystaan garsoor hagaagsan, waa haddii dadku ay cadaalad haystaan, lacagtu way imanaysaa, dhaqaaluhu wuu hagaagayaa. waxaan aaminsanahay wax kasta waxaa sal u ah cadaaladda. dhammaan go'aannada aan sheegay waxaan ballan qaaday inta aan lay dooran. horay ayaan eebba hortii ugu dhaartay in aanan uga dan lahayn arrimahan inaan xil ku helo, laakiinse ujeedkaygu yahay inaan bulshada ugu adeego keliya. wixii aan horay u ballan qaaday ayaan maanta ka dhabeeyey oo keliya. والله لم أبحث أبدا لا عن سلطة ولا عن جاه ولا عن مال. كل المواقف التي أعلنتها لخدمة الشعب التونسي. السلطة لا أبحث عنها ولن أبحث عنها، هي ابتلاء يعني، وأتمنى أن لا أبتلى بمثل هذا. xilka anigu raaxo uma arko ee dhib ayaan u arkaa. sidoo kale xilka waxaan u arkaa in laygu imtixaamayo sida aan uga soo baxo mas-uuliyadda culus ee la isaaray. eebbe ayaan tala saaranayaa in aanan imtixaankaas ku dhicin. weli waxaan ahay macallinkiinnii ubadka barbaarinayey oo aad mas-uuliyad kale oo culus ugu darteen oo aad u garateen inuu bulshada oo dhan baxnaaniyo. وقلتها منذ أيام مستلهما هذا القول من الآية الكريمة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتبت علي أيضا المسؤولية وهي كره لي.